waxa uu caalamka cusub u soo joogay noocyo badan oo dagaal ah oo ugu caansan dagaalka la isku haysto hubka iyo awoodda military kana timaada dawlad xoog leh oo gudubta mid taag daran dalal badan waxay la kulmeen dhibka ka dhashay dagaaladaas waxayna u horeen nafahooda waxayna u soo halgameen madaxbannaanadooda iyo xorriyadooda balse dawladahan daciifka ah waxay la noolaayeen duulaan kale oo aad u qaraadhan duulaanka dhaqaalaha oo ay ka dhashaan dhimashada gaajo wadareed iyo xanuuno loo waayay xal waxayna tani ku qastay dawladii taagta darnaa inay khayraadkooda u fasaxaan shisheeyaha iyadoo loo soo xiranayo khamiiska maalgashiga shisheeyaha khayraadkoodana ay ku raaxaystaan quruumo kale waxay ku qasbanaadeen inay qaataan deymaha taasoo suurtagelisay in dabdhilifyo u noqdaan dawladihii awoodda lahaa waxaana gacanta laga saaray waxay u malaynayaan inay kaga takhalusayaan dhibta ay ku jiraan balse xaqiiqaduba waa dagaal ku saabsan qiyamka iyo jiritaanka ummad haysata diinteeda dhaqankeeda iyo weliba luuqadeeda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaan muuqaalkan kaga hadlaynaa mowduuc aad u muhiim u ah waana waxa afka qaad lagu yiraahdo war of ideas ama al-ghazw al-fikri waa dagaal aan ku koobnay saaxad dagaal oo la soo fadhiyo dabaabada iyo madaafiic soo kala ka fudud kana saameyn badan waxaanu galaa dhaqanka diinta iyo xataa luuqadda ay ummad leedahay waa dagaalka wadada u sii xaar dagaalka hubka waa dagaalka dhameystir wuxuu dhameystiri kari waayay qorigu waana dagaalka curyaamay rabitaanka iyo qaashada kuwa laga adkaaday ilaa ay ka dagayso cuqdada ay u hayaan kuwii baabiyay kana noqonayaan dabadhilifyadooda waxaana waxa loogu yeeray la dirirka afkaarta waana in dawladaha islaamku ay taabacsanaadaan daba socdaan raadkooda daba guraan dawladaha reer galbeedka iyagoo weliba aan dareensanin dabadhilif yihiin luquntoodana ay ka lulato silsilada dulnimadu iyo inay qaataan qiyamka iyo akhlaaqiyaadka shisheeyaha sidoo kale loo xambaariyay manaahijta shisheeyaha si ay ugu canqariyaan jiilkooda soo baxaya si uu beri u soo baxo jil ay dhalin hooyooyin soomaaliya oo muslimiina balse xambaarsan caqliyad maraykan ah la dirirka afkaartu wayna cadowgu inaga dhasaabo taariikhdeenii hore taariikhdii geesiyaasheen iyo tiyaawiyaasheen booskeedana inugu bixi taariikhda dawladdiisa guushii dagaaladiisa taariikhdii haliyadiisa iyo hogaamiyaashiisa la dirirka afkaartu waa in la tirtiro luuqadii ummaddaas booskeeda lagu bedelo luuqad shisheeye heer ay gaadhay inuu qofku inuu aqoon-yahan yahay uu ku qasban yahay inuu ku turto hal iyo laba eray oo luuqad qalaad ah la dirirka afkaartu oo wadiiqada militariga ahayn ay adeegsadeen crusadersku si ay u tirtiraan muuqaal nololeedka muslimiinta lagana wiciyo muslimiinta inay ku dhaqmaan kitaabkooda samaystaana dastuur aan ahayn kitaabka ilaahay duulaanka caqliga ee caqliyada muslimiintu wuxuu noqday bartilmaameedka dhusarada hoose wuxuuna isku dayay inuu meesha ka saaro nuxurka haddaba duulaanka caqliyeed ee nagu waajahan wuxuu diradda saaraya laba shay oo keliya taa kow qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam waana halka qofka muslimka ka shidaal qaato iyo arrinka labaad oo ah luuqadda carbeed waayo luuqadaas wax ku qoran dastuurkeenna hubka wax gumaad ay adeegsadaan ama loo adeegsado dagaalkan waxaa ka mid ah fikradaha erayada ra'yi xeelad aragtiyo tuuno hadalka oo loo sameeyo tafsiir aan ahayn iyo weliba waxyaabo kale oo buuxin kara booskii qoriga reer galbeedku waxay ku ogaadeen halgankii dheeraa ee la galeen islaamka in kaydka awoodda ee muslimiintu ay tahay diintooda sidaas darteed waxay ku dadaaleen inay teed kala dhex dhigaan qofka muslimka iyo caqiidadiisa qorshahooda nidaamsanna waxuu ahaa inay ridaan khilaafada islaamka oo la kala firdhiyo dowladaha islaamka markaa kadib ama firdhinta kadibna mid walba gaarkeed loo weeraro laakiin reer galbeedku waxay ku baraarugeen in duulimaadyadoodan soo noqnoqday ay saameyn ku yeesheen ruuxda shakhsiga muslimka oo ay tani horseedayba kubaaqida jihaadka iyo ukidda ururdiimeedyo la dirira halkaana waxaa ka bilaabmay dagaalka afkaarta haddaynu eegno tirarka iyo aaladaha hanashada caqliga reer galbeedku mar raba kumay tirsay hal nooc kaliya si ay duulaan ugu qaadaan caqliyada muslimiinta laakiin waxay sameeyeen dhowr tiro aad u culus si ay saameyn ugu yeeshaan dhaqamada iyo afkaarta muslimiinta sidoo kale ay u go'aamiyaan mustaqbalkooda waxaana qodobadan ugu muhiimsan kow siyoonka iyo yuhuudiyadda waxa laga yaabaa inaad aaminsantahay in siyoonku yahay urur siyaasadeed halka yuhuudiyaduna tahay diin laakiin sidan sax maaha oo haddaynu sidan aamino waxay tahay macnaheedu inay ku guulaysteen qorshoodii laakiin dhab ahaantii siyoonku iyo yuhuudiyaddu waa hal shay oo leh hal ujeedo maxaa yeelay siyoonku wuxuu adeegaa yuhuudiyadda waana urur qurun ah oo hadafkiisu yahay dhanarugada iyo baabiita qiyamka iyo jiritaanka cidda aan yuhuudda ahayn heerarkeediina waxaa ka mid ahaa inay yuhuudda waddan uga samaysa falastiin waanay ku guulaysatay waxaanay har iyo haynba u dadaalayeen si yuhuudda u noqon lahayd boqortooyada keliya ee caalamka ka talisa si ay ku qoran kitaabkooda ay fadareeyeen ama ku ciyaareen ilaahay wuu kici doonaa wuxuuna qiyaasi doonaa dhulka waxaanu ka yeeli doonaa kuwa sanamyada caabuda qaar ku hoos jira xukunka Israa'iil waxay leeyihiin oo dhan wuxuu noqon doonaa wax yuhuuddu leedahay sidaas daraaddeed qofka yuhuudiga wuxuu aaminsan yahay in wax walba oo caalamka kor saaran loo abuuray in isaga u adeegaan
qodobka maskaxaada ku hay. haddaba siyoonku waa tiirka ugu muhiimsan ee la dagaalanka afkaarta iyo caqliyadda, waxaanay waddo kasta u marayaan siday u baabiin lahaayeen ama u dharrogi lahaayeen taariikhda iyo albaxnimada islaamka, sidoo kale u fasaahadin lahaayeen akhlaaqda muslimiinta iyo dumarkooda, iyo sidii dhalin badan loogu soo dari lahaa ururkan iyo ururada la midka ah. tiirka labaad ayaa waxa uu yahay kubaaqada kiristaanka. kiniisadu waxay xooggood u dhigeen dadaaladooda ku aadan faafinta diinta kiristaanka ee lagu hafinayo wadamada islaamka si booska islaamka uu buuxiyay kiristaanku. Lawrence Brown oo ahaa mulxid balse markii dambe islaamay ayaa waxa uu leeyahay isagoo tilmaamay xaqiiqada faafinta diinta kiristaanka, hadday muslimiintu ku midoobaan hal boqortooyo keliyata waxay nagu noqonayaan khatar, laakiin hadday sidaas u kala tafaraaruqsanaadaan oo u kala tagsanaadaan waxay ahaan doonaan qaar bilaa saamayna oo aan waxba layskaga tirin. dhanka Master Plus ayaa waxa uu leeyahay islaamku caqabada koowaad ee hortaagan fidinta diinta kiristaanka, islaamkuna waa cadowga koowaad. sida ogtiina fidinta diinta kiristaanku waxay ahayd tallaabadii ugu horreysay wadada u sii xadhay gumaysiga, waayo wuxuu helay dhalin deegaanka u dhashay oo diintiisii qaadatay kadibna gacan furan ku soo dhoweysay. haddana si kale u idhaahdana gumaysigu waxaa mid walba ku lamaan siyoonka iyo wadada kiristaanka. sida badankiinu aaminsantihiinna maaha gumaysigu mid bilaabay qarniga 19aad balse uu ka horreeyey, waxaanu bilaabmay 8 qarni ka hor, waxaana taa ku cadaynaysa markii 1917 duulaanka uu Falastiin ku soo qaaday General Edmund Allenby oo intuu qabriga Salaaxudiin Tultigay ka duuliyay weedhi saxaanka ahayd ee Salaaxudiin waana ka soo noqonay haa qad cudnaa ya Salaaxudiin. waxaanu gumaystuhu awooday inuu xadaaradiis nijaasteed ku durwaro xadaaradda islaamka, sidaasna uu ku dago dad badan. waxaana jira wadooyin kale u adeegsadeen siday u baabiin lahaayeen muslimiinta iyo islaamka, waana gacan ku dhigidda aqoonta, ilbaxnimada, isgaarsiinta, kutubta iyo weliba suugaanta ummadda islaamka. haddaynu sidoo kale eegna aragtiyooyinka iyo mabaadi'da kullidka islaamka ee dagaalka dhexdiisa la adeegsado waxaa ka mid ah dimuqraadiyadda, shuuciyadda, raasamaariyadda, qoloqolaysiga. aragtidan iyo mabaadi'dani waxay noqdeen kuwo mashquuliyey dad badan oo muslimiin ah maanta, dhammaantoodna waxay cadow ku yihiin islaamka, waxayna ka mid yihiin nidaamyada aanu islaamku marnaba aqoonsanayn. tusaale ahaan dimuqraadiyaddu waxay leedahay awoodda waxa iska leh shacabka iyo dadka, laakiin diintan waxayna leedahay xukun dhammaantii wuxuu u sugnaaday ilaahay, ilaahayna waa sharci dejiyeena, isagana sharcigiisa lagu liibaanaya akhriya adduunba. war miyaynu u baahanay markaa sharci dejiye? miyaynan ku kalsoonayn ilaahay? miyaynu u baahanay aqalka shacabka iyo aqalka maxaa waxaanu buuqa iyo sijidayna geliyey? waayahay haddana yadan eego raasamaaliyadda ama hantigoosadka waxay ka dhigan tahay in la dhiirigeliyo mulkiilayaasha xorriyadna loo siiyo wax walba ay soo saarayaan. haddaba nidaamkani wuxuu caalamkan cabsiyey koob naar ah. tusaale, nidaamkani wax ahmiyada ma siiyo akhlaaqiyaadka, iska daa inuu sii wuxuu ku baaqaya ka xubsiibashada dhaqamada wanaagsan oo dhan. waxaana ogaataa in hantigoosadku yahay hooyada calmaanada iyo ilxaadka, waana dhaqangeliyaha xeerka kaynta oo ah inka awoodda roonicuno ka taagta daran. meelaha ugu weyn ee islaamka ka hor imanaya waxaa ka mid ah in nidaamkani bannaynaya ribada, idinkoo halka ay diinta ka taagan tahay ribaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta hoogga ugu badan ama cabashada ugu badan gaarsiiyey gaal iyo islaamba. ribaduna waa hooyada deymaheena haraaqiyey ee dowlad walba lagu bajiyo ee xurriyaddii ka qaaday. meelaha kale ee nidaamkani ka hor imanaya islaamka waxaa ka mid ah inaanu nidaamkani qirsanayn waxa la yidhahdaa sako oo xaqa oo faqiirku ku leeyahay taajirka. dhanka kale wuxuu nidaamkan xaal uga dhigaya dowladaha awoodda leh inay qabsan karaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dowladaha taagta daran. ujeedku uu yahay in wadamada laga helo alaab qayrin, suuq cusub iyo weliba shaqaale jaban. haddaan intaa kaga soo hadha hantigoosadka, bal eegna shuuciyadda iyo hanti wadaagga. ma jiro nidaam ku dhacay khilaaf cad sida nidaamka hanti wadaagga. isburinta ka dhex jirta nidaamka gudihiisa ayaaba ku filan ka takhallusidiisa. waa sababta keentay in markii kacaan ku dhawaaqay nidaamkan uu ka horreysay weedha scientific ama scientific socialism oo macnaheedu yahay hanti wadaag ku dhisan aqoon. way ogaayeen in ummad islaam ah oo weliba Soomaali ah aan nidaamkan lagu dhaqi karin. haddana sidoo kale sida aragtida qowmiyadda ama nationalismka waxa odhan kara waa tabcadii ugu xumayd ee loo adeegsado midowga islaamka si loo kala furo. tusaale ahaan markuu Napoleon uu soo galay Masar waxa uu aad u karaasay weedha Allahu akbar wa cizzatu lil muslimiin. inta kadib Napoleon wuxuu helay xal uu weedha meesha kaga saari karo. xalkuna wuxuu ahaa in ummadan qowmiyada loo kala qaybiyo. tusaale waxaynu soo qaadan karnaa dowladda u dambeysay ee gacanta ku haysay midowga islaamka waa dowladda Cusmaaniyiinta. waxyaabihii ugu weyn ee ka qaatay dhicitaankeeda waxaa ka mid ahaa arrinkan. tusaale ahaan carabtu waxay dowladda u arkeen ixtilaal, gumaysi, wax la mid ah barbariyiinta. waa sababta aan kuu leeyahay waa tabcadii ugu xumayd ee midowga islaamku la kulmay. haddaba waxaad ogaataan in reer galbeedku xanuun ku faafinayeen jirka ummadda islaamka, weliba muddo dheer ay irbadaha suntan ila daba socdeen,
laakiin laga yaabo inaanay waqtiga hore saameyn nagu yeelan, laakiin iminka waxay nagu yeelatay saameyn aad u xoogan. tusaale waxaynu arki jirnay hablo xijaaban dhowraya dhaqankooda iyo diintoodaba, laakiin maanta wax walba waa kasoo horjeedka. waxa soo badanay dhalinta la tacaalaysa daraagiska oo weliba bilihii u dambeeyay aad looga soo qeydinayay. waxaad arkaysaa kor u kaca daawashada aflaamta jinsiga, waxaad arkaysaa dhalinyaro u doodaysa in jaaska iyo nikiska loo banneeyo. waxaa intaa kasii daran in khaladkooda loo qurxinayo oo laleeyahay adeer xor bay u yihiin waxay samaynayaan, kii xijaabka tuurtay, kii isturay, kii faakaysanaya bakhlaynaya, dhammaantood adeer waa xor. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. waxaan muuqaalkayga kusoo gabagabeynayaa qaar ka mid ah hadallada madaxda reer galbeedka ee tusanaya niyad xumadooda. boqor Luwiska sagaalaad ee Faransiiska ayaa wuxuu yidhi markuu Masar kusoo duulay kadib, suurtagal maaha inuu muslimiinta kaga guulaysano dagaallo toos ah, balse waxaynu kaga guulaysan karnaa dagaallo dadbani ama siyaasad. hogaamiyihii Faransiiska u fadhiyay Jazaa'ir ayaa yidhi mar la xusayay boqor guuradii gumeysiga Jazaa'ir, kuma guulaysan karna muslimiinta intay akhrinayaan qur-aanka kuna hadlayaan carabida, waxaynu ugu waajiban inaynu kitaabkan iyo luuqadanba tirtirno. Howard Gardner oo caalim nafsi Maraykan ah ayaa wuxuu leeyahay dagaalada Crusaders-ka ujeedadoodu ma ahayn qabsashada Qudus, balse ujeedkoodu wuxuu ahaa baabiinta islaamka iyo muslimiinta. Tekal oo ah wadaad diinta kiristaanka faafiya ayaa wuxuu leeyahay waxaynu ugu waajibaa inaynu ahmiyadda siino yigilada dugsiyo lagu dhigto afkaaraha galbeedka ee sharaabsana cilmaniyadda, maxaa yeelay muslimiin badan iimaankoodu daciifi doonaa marka wax ka bartaan dugsiyadaas. qoraaga kitaabka islaamka galbeedka ee mustaqbalka ee lagu magacaabo Orlon ayaa waxa uu leeyahay midnimada islaamku way hurdaa, laakiin waxa laabtina ku haysaan inay marun soo baraarugayso. u sheega ninka insha Allah marun soo baraarugi doonaa. haddaba waxay weerahan iyo kuwa kale badan tusinayaan inaan wax ama aanu jirin wax dhaqan conspiracy theory ama aynan mal awaadska aaminsanayn ee dagaalkan dhab yahay ahaan silsilad taxan oo lagu talagalay in lagu kharaabiyo bulshooyinka islaamka. waxaana booskii qoriga ku bedeleen qalinka, halkay booska risaasana ku bedeleen beenahooda aan salka yarada qatoon lahayn. waxayna beenahaas ku dhufsadeen ama ku kaxaysteen dhalin badan, waayo wuxuu dagaalkan ku waajahan yahay waa xuduudda iyo caqliga cusub ee waddan islaam ah leeyahay. intaas ayaan kusoo koobaya muuqaalkayga maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.